howlahan ka bilaabay magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed ayaa ah kuwa la doonayo in laga hortago amni darrada iyo in dib loo soo celiyo bilicda magaalada Jowhar oo hadda u diyaar garoobaysa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar iyo qaar ka mid ah bulshada xaafaddaasi ku nool ayaa saaki waxay bilaabeen howlo isxilqaan ah wax looga qabanayo nadaafad darrada iyo amniga. Cabdi Xaamud Xasan oo ah gudoomiyaha xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ayaa sheegay inay ka go'an tahay horumarinta xaafadda Horseed iyo guud ahaan midda degmada Jowhar. anagoo iskaashanayna heer gobol iyo heer degmo iyo state-kaba waxaan u taaganahay inaan ka shaqeyno nadaafadda, bilaac soo celinta iyo waxyaabaha ku saabsan amniga qayb ka noqonayo kamid ah sida nalalka oo kale waxyaabahaas aan ka shaqeyno maadaama doorasho ay nagu soo food leedahay oo aan u diyaar galoobayno inaan soo dhaweyno oo fuud kala nooc ah amba xildoon ah amba maaragtay yani korjoogayaal ah amba ergooyina maadaama aan ku noolnahay caasimadana ay tahay iftiinka la iska dhaxarkaay maamul goboleedka Hirshabelle ayadoo taas laga duulayo aan qaadahayno amaamirta madaxdayna oo madaxweynaha ugu sareeyo waxaan go'aansanay inaan ka shaqeyno horumarkayna ku saabsan nadaafadda, bilaac soo celinta, amniga iyo waxyaabaha lamid ah waxaan kaloo rabaa inaan halkaan ugu faa'iideysto fursaddan qaaliga aan la dardaarmo bulshada aan mas'uulka ka ahay waaxda Horseed waxaan rabaa inay ku dadaalaan nadaafadda, inay ku dadaalaan amniga. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa ugu baaqay gudoomiyaasha waaxyaha kale ee degmada iyo guud ahaan bulshada ku nool magaalada Jowhar inay ka qayb qaataan horumarinta degmada. waxaan kor joogay xaafadda Horseed ee u horkacay gudoomiyaheeda waa kan labaad ee maanta maxaan ku raayto howl muuqata ka qabanayo xaafadiisa ama xaafadiisa waxaan leeyahay waxaan rabaa baaq inaan wada jeediyo bulshada qaybahooda kala duwan iyo mas'uuliyiinta kala duwan sida afarta xaafadood waxaan rabaa in ay ku dhaqaaqaan bilic soo celinta nadaafadda iyo maxaan ku raahay nalalka inay ku xiraan guriyooda hortooda dadka loogu baaqo dadka loo sheego qofkii aan